kulan wacan akhyaartana daawatay waxaad ku soo dhawaataan janaalka Lewaya Films oo aad ugu barnaadeen warbixinadii ugu dambeeyay la xiriira arrimaha Bollywoodka. muuqaalkana maanta waxaan ku soo qaadanaynaa aktarka bilaabo iskoorka ah lacagaha filimada ay soo xareeyaan sida guud marka box office ay ka soo degaan sida 100 karoor, 200 karoor iyo 300 karoor. aktarkan waxaa lagu yeeraa master perfectionist ama qof dhameystiran. waa jilaa door walba ka run sheega waqtina geliya 3 sanaba hal filin ayuu la yimaado oo adduunka oo dhan ku qabsadaa. waa Ameerikan waana xidig aan lagu arkin goobaha abaalmarinta lagu bixiyo waayo wuxuu u arkaa wax aan si sax ah loo bixinin. warbixintan ayaan waxaan kaga hadlaynaa xidigan iyo sidoo uu u dhabeeyay rabitaankiisa uusan u maqlin dadka asiga u dhawaa oo lahaa waxa qaldan ayaa sameynaysa. wareysi uu bixiyay aktarkan Ameerikan ayuu arrimahaasi kaga hadlay. waxaan hadii jeer sameynaya waxaan aaminsanahay markaan jiray da'ada 12 sano jir ayay ahayd markaan go'aansaday inaan barto qaabka filimada loo sameeyo. waxaan u sheegay asxaabteeda qoyskeeda iyo qof walba oo ii dhawaa inaan ka shaqo bilaabay caawiye director aan bilaabay barashada film sameynta. waan ogaa qof walba xilligaasi dabcan waalidiinteeda way igu qeyliyeen waxaanay dhaheen ma rabtid inaad qalin jabiso waxaad rabtaa inaad waxbarashada ka tagto. guriga buuq ayaa iiga kacay waxayna ahayd wax soo jiidasho leh sida saxda ahna ku aadan nolosheeda go'aan walba ii muhiim ah iyo dadka oo dhan oo ii muhiim ah oo ii dhawaa waxayna hadii jeer ii sheegi jireen qalad ayaa sameynaysa. xidigan oo wareysiga si wata ayaa markaan yiri waxa aad iigu cadaa tan waxay ahayd wax aan rabo inaan sameeyo sidaas daraadeedna qofna ma dhageysan jirin saaxiibadey ma dhageysan jirin qoyskayga sidoo kale. waxaan sameeyay waxaan rabo inaan sameeyo maxaa yeelay waxaan dareemayaa hadii ay ii cadahay waxaan rabo inaan sameeyo daacad ayaan u ahaa. sababta u sameynayo ayaa ah waa wax ii muuqda sidaas daraadeed waa inaan raacaa dareenkayga hadii xitaa aan bari ku qaldamo waxaan ku qaldamay dareenkayga oo kuma aanan qaldamin qof taladiisa. xidigan ayaa waxa uu sheegay in qaladaadka laga barto cashar iyo khibrad ku siisa oo aan wax qalad ah aan ku jabnayn. haddii aan qaado tilaabo qaldan waa la macaamila waxaana ka baranaa khibrad waxaan hadda iyo jeer ku faraxsanahay nafsadeeda taasi ayaan ah waxaan aaminsanahay. xidigan ayaa waxaa hadda u diyaarsan film kala wada sugayo oo uu la wado Kareena Kapoor Khan ee Laal Singh Chaddha oo lagu wado in dabayaaqada sanadkan la daawado. haddaba haddii aad ka hesho warbixintan la wadaag asxaabtaada.